magacayga injineer Roble Hassan Abdi maanta waxaan leeyahay soo bandhigo mowduuc aad muhiim u ah mowduucaas waxa uu ka hadli doonaa structural rehabilitation and retrofitting waa mashruuca dib u casriyeynta iyo dib u hagaajinta dhismayaasha sideeda markaynu ka hadlayno waxay leeyihiin duration ama muddo loogu talagalay inay jiraan muddadaas ka bacdi waxa loogu talagalay dhismayaasheena in dib loo casriyeeyo haddaba dib u casriyeyntan guryaheena waxaynu ku eegi doonaa mowduuceenan iyo sida loo casriyeyn doono haddaba su'aasha meesha taala waxa weeye gurigeena goormeebeen odhan karnaa wax uu noqday ama gurigeena dhibaato ayaa la soo daristay oo ma qaadi karo culaysadii loogu talagalay gurigeena markaynu ka hadlayno sidiisaba waxa loo eegayaa xaaladahan soo socda inuu gebigiisaba dhammaan ahaan wada burburay ama qayb ka mid inay burburtay lambar 2 in gurigeena ku dhacay cracking dildilaacyo lambar 3 in gurigeena deformation uu ku dhacay oo daacsan haday tahay deflection inuu gurigeena sameeyo daacsan haday noqoto inuu noqoto buckling haday noqoto inuu noqdo twisting marka waxyaabahaas oo dhan markaynu aragno ayaynu oran karnaa gurigeenan ama structure-keena waxa ku dhacay failure ama gurigeena sidii loo baahnaa uma shaqeynayo oo culaysadeena ma qaadi karayo haddaba markaynu ka hadlayno mowduucan dib u casriyeynta maxaa sababi kara in gurigeenan sidan uu noqdo waxaynu u qaybinaa 3 category ama qaybood qaybta koowaad waxaynu oran karnaa physical cause oo dhanka environment-ka ayaa saameyn ku yeelan kara waxa kamid ah physicalka markaynu leenahay dhanka cimilada waxay u kala qaybsamaysaa oo ay kamid tahay sida dhammaan gaasiska ku jira hareeraha ama cimiladeena sida carbon dioxide-ka sulfate-ka sida water-ka dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan dhismaheena marka haddaba chemicalka markaynu ka hadlayno aynu guryaheena iyagana ka hadlayno sidee u saameeyaan waxa kamid ah ICD baa wax yeelaysa guryaheena haday wax yeeshana gurigeena structure ahaan imikoo kale birta markay la fal gasho way daxalinaysaa markay daxaliso meesha wax ka dhacaya failure ama si loo baahnaa waxaan uma shaqeynayaan oo gurigeena waa burburaya sida oo kale waxa ku dhacaya waxa la yiraahdo alkali attack waxa inta badan isla falgalaya saliika iyo carbon waxaana meeshan ka dhacaya inuu dhismaheenan ama shubkeenan u weynaado ama u balaado sida oo kale waxa meesha ka dhacaya carbonationkaas waxa weeye carbonta ayaa la falgalaysa calcium hydroxide markay carbon dioxide la falgasho meesha moisture baa jira hawadaas iyo moisture-ka jira amaba dhegdhega biyaha ayaa waxa la isla falgalay carbon dioxide iyo calcium hydroxide meeshii waxa ka dhacaya calcium carbonate soliya bubble water ka tahay markaaba waxa dhacaya meeshii aynu haysanay birti ayaa waxa ku dhacay corrosion hadduu yimaado daxalaysi markiiba waxa baabaaya ama waxa ku dhacaysa dhibaato dhismaheena sida oo kale markaynu ka hadlayno dhibaatada kalena oo badan inta badan ku dhacda structure-keenu ka hadlayno ma aha structure-kii bangalooyinkeena yaryara guryeena waa structure-ka fooqaqa aad u waaweyn kuwaas ayaynu diiradda ku saaraynaa corrosion-kaas waxa weeye daxalaysigaas inta badan birta ayuu ku dhacaa hadduu birta ku dhacana dhibaato aad weyn ayuu ku sameeyaa maxaa yeelay birtani waxa loogu talagalay inay tension zone ay caawiso marka haddaba systemadan aynu kusoo sheegnay xaggaas oo hore sidaynu ku ogaan karnaa qaabkaynu ku ogaan karnaa waa 3 qaabood waxa weeye qaabka koowaad non destructive testing system baa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa NDTS kaas waxa weeye waxaynu ogaanaynaa concrete-keena ama shubkeena intan aynu qiimeynayno maxaa hareeraha ka xiga ma burbur ka xiga ta kale waxa weeye partial destructive testing system waxa la yiraahdaa PDTS ayaa loo soo gaabsadaa marka PDTS taas waxa weeye concrete-keena ayaa qayb ka mid ah qaybtaynu ka hadlayno maaha qaybta ku xeeran ayaa damage ayaa
waxbaa ku dhacay ama wax yeelowday ta kale waxa weeye destructive testing system destructive testing systemkaas waxa weeyaan ETS ayaa iyadana loo soo gaabsadaa waxa weeye dhammaan concrete-keena ama shubkeenaas waa burburay haddaba waxaan aynu sheegayna saddexdan hab waxa loo isticmaalaa qalabyo kala wada duwan qalabyadu waxay kala yihiin kuwa aad u fara badan kuwa waxa ka mid ah waxa la yiraahdo surface hardening method ama habka kale waxa weeye aynu sheegaynaa waxa la yiraahdo ultrasonic pulse velocity ka kale waxa weeye vibration method ka kale waxa weeye pulse echo method hababkaas oo dhan waxa lagu ogaanayaa inay non destructive testing system waxaan yihiin oo concrete-keena waxa ku hareeraysan ay hagaagsan yihiin ama ay wax qabaan haddaba markaynu ka hadlayno qaybta labaad ee ah partially destructive testing system PDTS kaas markaynu eegayno isna waxa la eegayaa oo la marayaa wadiiqooyin ama tijaabooyin fara badan tijaabooyinkaas waxa lagu sameynayaa laabab waxay kala yihiin number 1 penetration technique pull off test saddexaad waxa weeye break off test saddexaad waxa weeye resistivity test marka qaybahan aynu imika ka hadlayno tijaabooyinkan waxaan jeclaan lahaa inaan practical idinku tuso marka haddaba markaynu ogaano dhismaheena waxbaa gaadhay ama waxbuu noqday dib u habeyntaasi wax aad u si culus ma waxay u baahan tahay wadiiqooyinkan aynu sheegi doono ama jaranjarooyinkan inaynu raacno jaranjarooyinkii haddaba maxay yihiin jaranjarooyinku waxay yihiin number 1 batch repair materialkan waxa weeye waxa la sameynayaa dilaacyadeenii ama meelihii wax noqday gurigeena waa la talbiisayaa talbiistan waxyaabo fara badan baa loo marmari karaa waxa loo markaa polymer modification baa lagu sameyn karaa polymer la isticmaalayaa talabaad waxa la sameynayaa injection growth waxa la sameynayaa meelaha dilaacsan ayaa lagu shubayaa si uu dilaacaas meeshaas u istaago number 3 bonding aids kaas waxa weeye dilaacaas meesha ka dhacay in la isku keeno oon dib u balaaran amaba dilaacaas u sii faafin ka kale waxa weeye resurfacing material waxa weeye surface-keennii amaba oogadeennii sare oo dib loo habeynayo haddii burbur lagu arko xagga sare oo kale gidaarka oo plasterinka talbiista waa la jejebinayaa dibna waa loo habeynaya haddaba waxaa jira hababkan aynu imika soo sheegnay qaar ka casriyeysan kuwa ka casriyeysan maxay yihiin kuwa ka casriyeysan waxay yihiin waxa la yiraahdo FRB waxa weeye fiber reinforced polymer kaas waxa loogu talagalay meelaha aad culaysyadu farbadiyeen sida meelaha stadiumku waad ogtihiinoo muddo fara badan marka la isticmaalo beamiskii iyo columniskii culeysyada siday waxa ku dhacaya way daalitaanka culayskii sufficient culayskii loogu talagalay muddada fara badan ayaa waxa uu noqonayaa culays in laga bedelo meeshaas oo dib casriyeyn lagu sameeyo marka waxa la isticmaalaa inta badan fiber reinforced concrete ama fiber reinforced concrete kan waxa uu si kala markaynu dhigno uu ka samaysan yahay glass carbon and cellulose waxyaabahaas oo dhan ayaa la isku darayaa ayuu ka samaysan yahay markaynu leenahay fiberkan markaas markaynu walaxdeena marinayno ama aynu ku sameynayno easily waxaanu arki doonaa in culayska ku soo dhacay gurigeena in ayar u transform gareynayso ama ay u bedelayso ama ay u yareynayso culayska meeshaas ku soo dhacaya sida oo kale waxa jira hababo kala duwan oo kamid ah super blastisterkaas waxa weeye wax yareynaya amaba aad u yareynaya biyihii gurigu isticmaal lahaa ama waraabaha haato ama ha noqoto in lagu adkeeyo guriga way yareynaysa 30% ay dhimaysaa marka mawduuceena waxaan jeclaaday inaan idin soo gudbiyo. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.